waxa la yidhi abaskuul meel lama wada degto warna isku masay horta aniga waxaan ku hadlayo wax off recording kuma jiro waayo waxaan ku hadlayaan waan aaminsanahay mana qarsado marka off recording waxa xaqayga ha ku tala gelinay ama mobile ku duubta ama Facebook ku duubta aad baad ugu mahadsantiin xor baatiin xor waayo waxaan la hadlayaa waa dadkaygii waa beeshaydii waa dadkii aan ka dhashay waa beeshii aan ku qanacsanaa inaan ka dhashay ilaahay hadduu ii weydiin lahaa xitaa inuu halkaan kaa dhaliya reerkaa iga dhali baan kaa uu ii gartay waa ku qanacsana marka inay wax dulmaan ma ogoli in la dulmana ma ogoli marka waxaan kala hadlayay dantooda ahi qarsoodi male contraband maaha lama gabanayo marka waa inoo wada recorded waxoo dhani waa in waliba wada baxaa axmed weliyow editing male waxay ilaahay ummadda barakaysanay maanta soo hor fadhiduu naga dhaliyayo beesha weynee gadabuursi baan ka soo jeednaaye baha samaroon dad barakaysan inaan ka dhalanaan aaminsanaho duco awliye qaba sheekh cabdiraxmaan zeylici sheekhii dariiqada qaadiriye dhulkeenna keenay gadabuursi ma ahayn samaroonna ma ahayn nin shariifa buu ahaa markuu dhulkeenna soo maray wuu duceeyey reerkeenna sheekh cabdilaahi qutubi oo weli ilaahay ahaa oo mustajaabu dacwo ahaana 1933 markuu waddankeenna yimid gobolkeenna yimid wuu duceeyey reerkeenna aniga waxa iga warramay xaaji daawud warsame anigoo aabbahay in badan ka maqlay xaaji daawud warsame wuxuu igu yiri 1933 habeenkii xaajid sheekh cabdilaahi qutubi boorama joogu dariiqada bixinayeen ka wardi qaatay inaan dhalinyaro abaan ahaa buu igu yiri xaaji daawud warsame raxmatullaahi tacaala calayh danin sheekhaasha buu ahaayo wuu inoo duceeyey hadda qabiilku guguma dacaynayne halka weli ilaahay u duceeyo awliyada kalena way wada daba martaa sheekh maxamuud macalin cumar baa inoo duceeyey sayid suleymaan baa inagu dul bururay dadkaa barakaysanee ducada awliyada qabaan nahayo waa su kalsoonay ku bishaaraystataa waxaan ka soo jeednaa gobol taariikh ku leh islaamka taariikh ku leh geyiga bariga afrika taariikh ku leh somaliland waa gobolka awdal zaylac baan ka soo jeednaa الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة والرسول كني محمد صلوات الله وسلامه عليه أنتم مكفدية هجرة دي دعدي قبل هجرة دي مدينة هرتين 6 سنة كور رسول كني 5 سنة رسوله الهجرة الأولى للحبشة تاريخ الناجح حبا وحي دقيان إن الصحابة دا هجرة كواد نشان يطبن بها هاين وعثمان بها قاميني هجرة اللي بعدنا دوري استيتم بها هاين وجعفر بها قاميني تاريخ قود له oo la ictimaadi karo iyaa sheegaya inay zeylac ka soo degeen dhulka barakaysan baan ka soo jeednaa marka dhul ahaan iyo dad ahaanba ilaahay wuu inoo roon yahay soo ma waayahay taariikhda goboladaasi waxay leeyihiin taariikh fac weyn oo xagga ganacsiga fac weyn ku leh oo xagga taariikhda mustacmaradu markay waddankeena timid fac weyn ku leh oo xagga islaaminimada fac weyn ku leh وحق الجهاد كي إيو إسلامي ستيتس كي وضن كان كتير الإمام أحمد قري ابن إبراهيم وكم يدي إنك أحمد قري الليلة وده تاريخ الآن عيد يقول ده يسوي يقول قبسنا يسوي أدير أوجي أها أنا تشرندي أحمد قري وايو هل كوكسو تشيدو ها وأخذ هذا نينا ده وهيستوري عن لنا هيستوري كي يجمر كان شاغنو مستقبل كي يجان سادالين كرنا ميلبا فريسين كرنا مستقبل ونكسنا وتكو قناعة اللهم صل على سيدنا محمد ده وقبل كي كان عسيجي حضارة لها بن كسو تشيدنا أي حجيدة إني كدلتهي ديقسياش أها كرامة لها أو حاجة غير أو حاجة جديدة أو حاجة هبل أو الديقسي نمدي إنه أصل كولهاي ده تطبع إنه هيجري صوما يمكن يجري تونا منطقة ده إنه كسو تشيدنا حضارة ده فقلي هي السبب إيسا إن عقلي هي علم الصومالي يدين تهنتدي عقلي أي علم قال إنه تهم يا أصل بولية سيدي مك أصل كيجا وأنا كم هذا نقيا حاجك وجو الرمي تشيء هذان أصل كيس اللي قوم فرعي سلمه وجانكر وين أصل كاجا تقارن أصل كاجو سيدا سو تاريخ وليه هاي واي هاي وحن إن بدن إن أوجن تدقق دون يا سياسة ودي جسوا جيسان ده سببها هي سياسة هي مرحلة هاي كل بمريسي أدي جسوا جيسان أنا بالصومالي ده من نعبي غير مقدش من نعبي وان جعلها وأمة صومالية إني وح نقدان بان للدنيا إني الدولة نقدان بان للدنيا إن ندرس ونكسن نقدنا للدنيا لكن أنا جو مركان ضنت إذا كهذلي بس حتى قبل كي مركان كهذلي سياسة ده يدو حي بيزر كتهاي وح حكومات إيجو آمية مصلحة دينا مصلحة أوبت كينا مصلحة الضل كي قبل كيكا ومة دي صومالية هل جن كذا إنجو باللوني in 1954 أو برو كبلا ما مركي دت كانوا أوجادين صومالية كلامي أوجادين إن سافريا إنجليز كنت بحيو إثيوبيا قاعد توجري قد برسيجا أوجادي
سو ما هيسان لا يعيسى إلا الصومالي حلبا إنك سارنا ولا نويدين يا آخر ردت كاي لهاي مزولية وجودي بينه حق عقلي علمي قبائه وحوي مركي أي أجادين أضياشيني مظاهرات كيوجو ريير سيف إيريا إن إثيوبيا لو عنقليا أو بروك باللوطين ما يهو هرجيس مركي تجين أضياشيني 1954 سلطان عبد الله هي سلطان هبل بيوتجين ولا قد جيسون ويا برعة كأغبش يا هذه يجر حساسية ديو ده إيموشنز وأدية لا مركي بمظاهرات كلا باللوطين ومدى صوماليات إن أجرمني إدرين كاسينو وجري أو برا إنه قبل لون مظاهرات كا وحين دوني إن دقوا دي الصومالية ده شن الصومالي وين الأورنشري يوجد برسك دوني ينو دليه يعني إنك قلت من تاريخ يعني إنك قلت من وحين دونين وحي كسور يكتبه على الصوماليات بلغت هاجي دول كي الأورنشري بريتش الصومالي لاند بروتكتوري 26 جون 1960 على كاس الصوماليات markuu baarlamaankii u horeeyay uu fariistay jibadii haysay shacbiga guud ahaan dalkan Soomaaliland la yiraahdo waxay doonayeen shantii Soomaaliyeed inay baadi goobaano waxa khasab lagaga dhigay bal hadeega biduun shardi wala qayd beeradeen without condition in lagula biiro walaalaheenii koonfur mustacmaradii gumaysigii dalkan ay maanta joogneen caawa ku sheekaysanayna waqtiga ay noo talinaysay talooyin bayna siiyeen war 10 sano loo tababarayay dawladnimada way idin ka horeeyaan aan idin yar dhiston wax idin barno dawladnimada barnood gaadhaan u yar kaadsh cadifadeenii way qabil weyd waxay tiri no Soomaali weyn baan doonina Soomaali weyn walaalayaal Hargeysa Muqdisho la isku daray maaha waa shan Soomaaliyeed marka waxaan qabaa carta in Soomaali lagu shiriyo maaha waa in caasimad Soomaaliyeed laga dhigo hadii Soomaali weyn la doonayo Soomaali weyn tan noocaas aan waa qaanan igama qaldana waynu la abraarnay oo waynu la tagnay magaaladii Muqdisho ahayd dawladda Soomaaliyeed ee walaalayaal dhalatay 1960 1st July ee labada gobol isu raaceen dadkan mataleen xildhibaanka waxa ay doortay markaan maslaxadooda qiimeynayo dawladdaasi wixii maslaxad ay u haysay baan comparison ku sameynaya iyo waxaan maanta u wadwado dawladdii Soomaaliyeed ee 60kii dhalatay 90kii burburtay dhaqaalaha dunidu ku caawisay دراسات بدنوا اللي سميه وحلا وش يجا إلى 4.8 بليون US دولار كاش كل سي أي مشاريع دولاري معناها أوبن شيء سبيل هاين وبقر فيصل سين شري وشخصيات كي إمارات كسين شري أو شيء صحيحين هاي اللي بقولوا مليون تضرب بقولوا مليون شن بقولوا مليون كل واحد دولة داسي وباهاتو أي كو قرنيسي ده معناها وحويد ورشدك اسمه هي اللي بكوا هالمشروع اللي فليه وشتها بالعضوة مد مشروع ده كده بوصاص هو مشروع مشاريع عين كاس مركز السود درتري وين بيك بروجكتس كا الدولة دا الصومالية اللي قفليه إلى بقول أفرتنية تضرب مشروع بالغو قيمية بالله عليكم كده بورسو غير أوضل ولا ليال تركيو وحن أنا أركي واي هيستوريا مركان دي بالراعي إن قبل كي أنا أقول الشيء اللي يقدر تنحي ما يريستي بل سينجل بروجكت أن ضل كي جاسي ومضي راسي تبقول أفرتنية تضرب مشروع أي كه الشيء بور ما الماضي الريال قبل كي أود اللي قفلي بالله عليكم يتصل وين واي لعقتها بلايين $. واحد لقى قبتي واحد يريد سكول كان يانور ديسي شعبي صاغرت سكول كشغل جوهر إسلامها كل المدة دبر كسوغري دقح كسوغري اسبيتال كان إنتان إنجليزي باكو داري دول دي سومالية نو حبكم يدارين يا أي ديسي محن كل سكول كان عمودة إنجليزي باكو ديسي كان كلي ألوجيت إسكا وحقة بسات كل ديسات والدولة بربرت إلا إنك إمك واحد حقيقة أو مرخات مدونة أو كم مرخات تهين قبل كأوضل دولة نمدي بربرتها الصومالية أو كرئيس والدولة نمدي بربرتها لقى مرئيس الدولة بين النسوق قاعدين دولة نمدي بربرتها لقى مرئيس دولة نمدي والله شبا والله بقى الدولة لقى مرئيس مركه هراني ولا ليال دولة بين النسوق قاعدين ده وحوي وحا أو أمضى صومالية أي عنته وذا جلسي وقوي جوردن أما سوماليلاند أنت الله يسكور أما أنت سجال مشروع بكيشي بقول يا فرتين تبغى مشروع أدو حبت كماثل ده ورشة ده سيبر كيد بربراد مشروع بيهيد ورشة ده لاس قري كلونكم مشروع بيهيد أدو قمادي هلين مركان سيدا حسابتها وياجي أيان المصلحة دي يجو ما شرتو إن المقدسة دي الككسو دري الله كرينا يسوع ما ريدو كرسنا يسوع وواي عيب كلام جوجيو حتى رانكو كوريو مركز شاهل صوش كريه كل اللي جهره اللهم صل على سيدنا محمد النبي قال صورت النبي نقول صلي بالله عليك اللهم صل على سيدنا محمد لقوا صلي يد قفك كورنها يرفدي كل اللي جهره وكجواب وقت
mar horena waan ku mahmaayay ilma adeerayaal iyadoonay ceebiba iyadoo aanay jirin dee xilliga hore Soomaalidu karsatay inaad arweyna ka gooya ka dambana intaanu soo karsamin dawladdii baa dhacaysa markaa ma waxaynu ku jirnaa sida soo bixinaa baa la yidhi dhulka keliyuu garan lahaa barigan wadada boorama bilaabay waxaa la igu yidhi dhulka keliyuu garan lahaa siduu garan maani nebi aad waa in anaguna wax ka bedelo anigii bakhaarka ku xaraashay yidhi wadadaan dhisaya marka inaad arday ku sacaboon tubi maynee dhaqaalaheedii iyo barwaaqadeedii iyo khayrkii Soomaali heshay sidaa anoo uga qaday xasaradeedan haddana fikta ma aha oo markay fargeliyaan Itoobiya faraha la galaan bambooyin baa igu dhacay diyaaradii xabashida war maxaa la igu dilayaa dee waan ka qatanahay dheefteedii dhibteediina waan u dhibanahay kolba 70 caruur gam laga siinay xabashidu bamgareynaysa marka waxaan idhi dee maslaxadii iguma jirto allah u naxariistay Sheekh Muuse Jaamac Goodaad ودي أنا الشيخ يجي سياسة نيو نيو لما تفرّا وحى أنا الشيخ موسى والشيخ يجي سياسة وعلى 1976 ديسمبر ما راح يكون صار إن نديب النقطة مقدشين وحبي نقول هذا وقاعد سيلايو وجهري سومالي لندن كم وقت سيلايو الشيخ موسى وجهري يسوي يدتوه يبغى بحيو أسلم تكلي بالحوينا ومن الحوينا قيمة لها وأنا دي كورة متوناي أن مركان سياسة كورة ما يجي ما دخل siyaasadaydu basic kuma aha gabayo hore inuu isku tirinay basic kuma aha dhibaatooyin badan oo taariikhda ku jira oo dadyowga dhaxmar maray waxay basic ku tahay masaalixda ummadda aan matalayaa waxay xaq u leeyihiin inay biyo macaan helaan waxay xaq u leeyihiin inay caafimaad helaan waxay xaq u leeyihiin inay waxbarasho helaan waxay xaq u leeyihiin inay shaqooyin helaan waxaasaan siyaasadayda ku base gareynayaa debari aad inuu si qolka Islaamka kuma base gareynayo because of taariikhda waxba laga bartay laguma go'aan qaato waxa weeye maslaxada aan u go'aaminay inaan Soomaaliland gooni istaageeda taageerno dad way araga joogay oo dad wax ka soo ogaa ilaa xorriyadda Soomaaliyeed 1954 mudaharaadkeeda oo barka bilowday ba ilmaadii reeyal go'aamiyay in sidan maslaxad ay tahay sidan inay maslaxad tahay waa qodobe marka maamulka la qaatay waxa laga badbaaday in fawda ku dhacdo gobolkeena oo dhowr maamul oo kala duwan ka taliyaan sida la saanood ku dhacday ee baabiisay maxaa keenay in maanta mirihii camuudeedu sharmaaka kamid yahay caydid ku faano booramo oo 3 barasaab leh camuudi may samaysanteen booramo oo 3 barasaab leh 9,000 oo guri connection biyo oo nadiif ah ma heleen maanta iyagoo 10 sano ka horna 290 guri oo kaliya ay connection biyo haysteen magaalada booramo oo 3 barasaab leh standardka caalamiga ee WHO oo qiimeysay caafimaadka adduunka in 5,000 qofba ugu yaraan hal dhakhtar helaan maanta booramo may marteen in 7,000 qofba hal dhakhtar ay u samayso that's why different waa maxay ku kaymiday la saanood iyadu waxay tiri barasaabkii Soomaaliland ka yimaadiyo kii Puntland ka yimaadiyo kii meesha la yiraahdo Muqdisho ka yimaadaba ka wada shaqeeyaan biyo way weeyday waxbarasho way weeyday caafimaadna way weeyday horta waa talo oo wadan oo waa maslaxad oo saasa lagu go'aamiyay gartay cid xubbi isaaq lama qaadin lama oranin aynu reerkan iska jeclaano lama cabsoono lama qabsano lama qabsan karo gadabursiina la qabsan karin military wise dadka ciidanka militariga ka yaqaana cilmigu haygala doodaan maraykanku haduu nagu soo duulana ma qabsan karo dhulka iyaguba waa buur iyo biyo iyo maxaan ku dhahay strategic yaa yiri gadaburso kala la qabsan karaa lama qabsan aad baad mahadsantihiin horta maslaxadaasaa keentay mowqifka lagu sameeyey calanka tawxiidka nimayo maslaxadaasaa keentay lama riyoonine waaqaca laga turjumay waaqaca siyaasaduna waa inay waaqaca ku biiskaraysnaata waxaad in badan imika xaaji maxamedna yidhi waad yar ee magaranaysa dardaaran weyn baa daylayn laysiiyey salla caleh waxaa la yidhi dee halkaasaan ayaan iyadana doonaya imika inaan gala deh tani waa principleskii guude mucaaradnimo waan ka midha keennay waan mucaaradnimo ka midha keenno mucaaradka weliba anigu markaan mucaaradayo qof shakhsigiisa ma necbi madaxweynaha mucaaradku waxaan odhan jiray adeer kuma necbi wallahi reerkiinana ma necbi madaxweyne laakiin siyaasaddaada waa ka soo horjeeda mucaarad baan ku ahay waa ku criticize garaynaya adba mucaarad waad ahay go ahead wuxuu igu yidhi iska soco si wanaagsan marka waxaan idinka wadaa markaan wax caaridayo uma caaridayo caloolxumo aan u qabo reer ama qof waxaan u caaridayaa aragti markaa ka duwan waxaan ugu waararkayo
mucaaradnimadaydii dee way socotayoo meel loogahay waa gaadhayoo waxay ku soo dambaysay inaan muxaafid isu bedelo sababo jira awgood waa inaan caaweed ka qanciyaa sababtaan muxaafid u noqday number 1 de xisbi baan lahaayoo aan madax ka ahaayoo aan ka soo baxayoo layga dhex doortayoo udub baa la odhan jirayoo raxmatullaahi calayhi wuu dhintay marka sharciguna cidlo lama joogsan karo cidlo lama joogsan karee waa inaad xisbi ku biirtaayoo axsaabtiina baadhbaadhaayoo tiraahdaa keebaa maslaxadda ummaddaadii ku jirtaa oo dibadna mid walba negotiation la bilowda oo tiraa maxaad ii haysaa maxaad dadkayga u haysaa maxaad noo qabanaysaa xisbigaa aan ku qanacnay madaxweynaha aan la shaqaynay inaan ku qanacsanay adeerka iyo nimayo waxaan ugu qancay waa qodobe afaan garaabin islaam kuma yaallo waa madaxweynihii afraad ee Soomaaliland 19 sano hortiibay Soomaaliland soo jirtay 3 madaxweynaha soo maray mid gobolkeenuba ka soo jeeday 8 sano dalka haystay wuxuu yiri saddexdii madaxweyne isku soo geeyay waxay qabteenoo anna Axmed Yaasiin oo labadayda sano bal isku geeyo niyo wadan saddexdii madaxweyneba dhibco ku yeesho maxaad adeerigu la dagaalamaysaa idigu haysata gobolkeenni baan ku noqday de war Cabdiraxmaan Tuur muxuu idin qabtay ma baan arag bay yiraahdeen namu soo gaadhin war cigaal de hubbu naga dhigay soo yobka anagu iska dhignay aqliga ku shaqaysiin ila hubka dhigis buu sameeyay dawladdu cagaa u taagay rayaalana wallahi 8 sano doon tuumini saabkee laakiin meel aan ku nidhaa ama musqushaas halka ka dhisay ama waxa kale halka ka sameeyay ma aan arag laakiin dawladnimo wanaagsan iyo dimuqraadiyadda uu nabaray oo naga shaqaynayeen سيلانينا صدق سنة يمكن لابد سنة ودبيس دليل 8 كيلومتر وكان شوي لعبته دي انت 1.8 مليون دولار كو هل كان waxaan kale ka sameeyay kan halkan ka sameeyay hadalkaasi marka wax qabad muuqanaya oo aan la dafiri karayno gobolkaygii bolosiga cusub ee ninkaasi wada ka turjumayo waan ku arkay waa qodob de ima kafayso waxaasi maxaa kale la yahay taas ay meeshii taale ima kafayse wadistanagas madaxweyne wuxuu yiri ninkii qodaxda lagu tuuray teel laga gooyaba lido horta balta barida iga gooyo baridaan u fadhiistay baahida aan qabo ee gobolkaygu qabo ee dekada ee dariiqya ee airport ee shaqaale ee maxay ah de waxba iigu daran nimayo anigu ra'yigayga de milixdaad khushidaadsan ee natural resource-ki waa inay suuq hesho market gasho oo de dollar soo goyso maxay u baahan tahay milixda tuqshiyeed u tagi laadahay malaayiinta qof boqolka milyan oo qof ee jaarka la bilaa milixda maxay ugu tagi laadahay de jidlaan bay ugu tagi laadahay jidba ii laba ah oo jidka boorama ilaa Seylac isku xidhaya ii laba kan gacanta itaalkeena qoyna dhigaba intii aan u waalanay de maxaa saamigeennii ba haray de saami baad doonaysaa war 8 sanad madaxweyne saamiga kala dhacay dad meeshooda qaadatan cid kuma haysane dalka sadde adigu kuma noolid oo la isku dhiidhiibay dad intaada fursadaada hadaad yar dayacdo dadka kale ku canaananay ka faa'iideysanaya fursadooda ka faa'iideysanaya ha canaananin dadka fursadooda dayacto laakiin khibrad ka helo tadambayana ka dayacminde fursaduna mar walba way kula taagan tahay hadaan adigu indha kale habar qaba wax ku eegi saamigi Rome is not built in one day maalin kaliya oo inta dadka la dareeriyo degada bulshada lagu wada qori kare si ba loo wada yaatay maalinba meel baad lagu la soo gaarsiinaya laakiin maxay maslaxadu tahay aan ka duuleynaa ilmaade rayaalanu haddaan helay madaxweyne diyaar la inuu dekada la dhiso haddaan helay madaxweyne diyaar la inuu dariiqii sameeyo haddaan helay madaxweyne waxaan tabayay inuu wax kasto ka suuragalay wax ka qabto dhageysto tixgeliyo qiimahayga yaqaan oo waayeela waxaan ku doorsado oo maalinka maanta ay dilaal leeyahay lascaanood buu roob ka soo onkadaya waan garan waayay taasaan idin qaaday masaalix shakhsiyadeed idin ma weydaarsanoo maba aqaano de bakhaaradeedaan daqiiqeedin ku dhisan tan yar idin siisanay ilmaade rayaal taa hay tuhmina danna kamalihi inama reerkeena ay dhib ma guriga lagu dhisay markaasaan idhi way fududayd bay laakiin wax ka taran iyo la ii wadaayo in gada bulshada dhan guriga dhisto iyo la suura gelinaya haddaan dekad helo gada bulshada dhamaanteen guriga dhisanayna haddaynu dariiq helo dhamaanteen dhaqaalaynu yeelanayna marka aniga de shakhsigu walaalayaal familigiisa u nooleyn karaa qoyskiisa cid waliba uu korsan karaa waxa se taariikhda sameeya waxa dunida record dhiga ninka yiraahdo ummadaasaan doonayaan wax ka bedelo caruuraha kale waa inay de guriga wada helaan Maxamed Yaasiin necessary ma ku shaqalaya la gaaray taayala kuwaan anigu leeyahay jira Maxamed Yaasiin inay guri helaan necessary ma laakiin kada bursigu inuu guriga wada helo faqriga laga kacan necessary taasan marka ka duuleeyay
guri kama qaadano xashaa lilaahi qiimaba ma leh waayo anigoo individual aan helaya ma aha waxaan ummadda ku mateli karo guri baa la yidhis marka walaalayaal mar haddii ciyaarta wanaagsan ee Real Madrid iyo Manchester ay soo bandhigayaan inta 12 baa lala soo dhaafo goolka macal goolayiga lala dhaafo lama noqdo ciyaar wanaag hadana lama soo muujiye goolka la dhaliya hadal wanaagsan hadda doonaysaan iyo cod macaan idin heesaynaay laakiin hadalku hadduu u baahnaa inuu wax gooyo waxaan is waxbu gooynayaa hal lagu gooyo hadlinuune hadduu wax gooynayo de ku gooya waana socotaa wad ka marqaatitiin in madaxweynihii qaranku uu safar halka nagala soo galay oo boorama xariga ka jirnay wadadii diliye boorame dariiqa 50 sano Soomaali oo dhan soo gaarsiin weeyday magaaladeennii deyn maadereeyal garaabo oo dhaqaalaha Soomaaliland yahay drop innovation waxa la sameeynayo waxa baahideenu tahay baahida kadeed tahay ay baahi maxaan ku dhahdaa ay tahay dariiq tahay baahi iyo dhaqaalaha Soomaaliland waa drop innovation marka drobkii yara hadduu ii barakeeyay ilaahay oo balaayintii Soomaaliyeed 200 laantii ka baraka batay dariiq yara boorba jaf soo siiyay kii xadhigii ka jaray oo soo kixiyay kii sayliceen doonayna dhagaxu dhigay oo uu soconaya isna mid baan idin bashaareynaya dekadiina waan dhagax dhignay haddaba maxay waxaan ku midho dhalayaan waxa wax lagu socday Soomaaliland ku socotaa shacab iyo dawlad baa iskaashada nimayo haddaydaan doonaynin inay halkan u sii fadhidaan ee doonaysaan in xitaa $100 ee aad diraysaan 20 years ka soo dirayseen idina aan nasataan anana aan ummad noqono sanadkan wax noo maroojiya oo sanadka dambana wax noo maroojiya oo sanadka saddexaadna wax noo maroojiya waxaan la iska goyni ummad kama go'aanay markaad wax soo maroojisaba waxa madaxweynaha iyo dawladdiisa ka maroojinaya ay kordhaya haddaad 100,000 soo urursato dee 200 300,000 man ka soo qaadi laakiin haddii 1 milyan baa reerkayga urursanayda madaxweynuhu ku khasban yahay 3 milyan inuu ku daro kolba sidaad wax igu maroojisaa way ag iskaashiga dawladnimo way waxa la yiri dad gobaynu nahay oo sharaf leh oo taariikh leh oo nasab ah oo isir leh oo asal leh marnaba caawa anagoo beeshii gada bursi la hadlayno oo inagu soo dhaweysay halkan gada bursigu wax dulmiye ma ogolin oo ku celcelinayna in la idin dulmiyana ma ogolin inaad xaqiina heshaan oo reernimo ku helo oo si sharaf loo daacadnimo oo wanaag ku jiro oo helo baan doonaynaa waa qabiilka sidii ilaahay litawaasalu saasu garataan saas ku xiriirisan oo riximkaagii u garato u xiriiriso waayo waa rixim baynu wadanahay inaad idinkuna de qurbahan umaydaan dhalanay aad ka soo noqotaan oo environment diyaarino inan ka gada buursi waxa kaliya ee shaakil ku yihi human capitalkiisi waa la dhisay more than 10,000 baa ku graduate garoobay 15 sano u dambeeyay wuxuu hadaba u baahan yahay aqoontiisa iyo capital human capitalkiisa la dhisay environment de aanu ku saaqidin ee uu dhaqaale ku sameeyo environmentkii baan doonaynaa dawladdan maanta taagan inay bilow ka noqoton walaalayaal waxa la yaabanaa dariiq laami'a oo Afrikaan la yahay oo Soomaaliland laga sii yahay oo aqoonsiba la helin ba dariiq laami oo 28 kilometers la dhisi karaa it was impossible waxaan aqli galin bay maxaynu maanta marxad ka nahay ilmaadariya inaan xarigi ka jirnay Soomaaliya lama aqoonsan dalkii dhaqaale kale oo badan inoo ma soo dhicin waa la dadaalaytay wixii suufka iyo xanjadaynu isku dhalaashanay anay believe hadana mar labaad dekedeena lug haya iyo dekadaha kale Soomaaliland iyo dalkeena Soomaaliland markayga iyo markiinaba hadade inaynu dhisan karnaan aaminsanahay inaynu dhaqaajin karnaan aaminsanahay inaynu ku ladnaysan doonaan aaminsanahay oo because waxa weeye maanta halkii dila iyo boorama saacada iyo barka loo soconayay 17 minutes baa ilmaad reeyay la socda waqtigii baa safe garoobay shidaalkii badnaa baa safe garoobay dhaqaalihii baa safe garoobay xitaa waxaan berigii calculate gareeyo daraasad ku sameeyay nooliga dadka ka safra boorama maalintii ee Hargeysa tagay masaafada Hargeysa in leegun dhulka laamida loo maro inay dhabar isku yihiin marka 1,200 qof baa safrayay maalintii 1,200 qof qof walba $3 siyaado ku tahay every day maxaa ka culus garooba boorame ilaa $1,000 oo nooliyuna ba maalin walba ka culus garoobay waxaan dhaqaalaha sida imisa tanku bariga baa mishtari baana bakhaar baan boorama ku haystay halka tan ee berberaan ka dalbada $17 buu igu imanayay nooliga halka wajaale oo iyadna 250 kilometer ana 275 baan berbera to boorama berbera to wajaalena waa 250 wax yar baan isu dheerahay 20 kilometer Soomaa wajaale $9 baa lagu keenay aniguna $17 because of 28 kilometer rafaan haysta marka tankii maxay igu siyaada almost double how many tons baa yoomkii soo galay magaalada maanta waa safe lacagtaas jabadii dadkii ku hareysatay ma kaskaroobayso marka dhaqaale ahaan 20 kilometer baa sidaa u bedelaya ijtimaaciyan magaaladeeni boormood ka warhaysan daara laga wada dhisay fooqiyay wada leedahay
fooq kasta albeerku noqdo albeerka kasta way buuxdaa